بسم الله الرحمن الرحيم وبسلامة سلام كدب عرب مانت إن أري مرتي الصومالية عن كود حلال ما ماذا وحيد هذا أفلجادو علادنا وحكمت ترت نبضنا ويكا جيسا مرك يقول ريدة عن ما هذا عن مقلوب وحيد بري أنا جوج ليبيا يعني لحري حبس الليبي كويا لنا لقي حبس waxaa ku jira Soomaali badan iyo Eritrean iyo Sudan dadkan inta badan waxa loo soo xiray waxay ahaayeen adoo waa taqaanaa dad kulligood raba inay tahriibaan xabsigii dadka aan isku baranay waxa kamid ahaa wiil Maxamed la yiraahdo Maxamed wuxuu aad u isticmaali jiray kaniinigan la yiraahdo waxaan madax xanuun ku roono Tylenol ama ibuprofen waxaa jirta marka qola IM la yiraahdo oo maalinta Khamiista timaado oo qofka xanuunsan soo yara wareysanayso kaniinina soo siinayso Maxamed ki marka uu ku badbata Khamiis kasta gacanta u taagtaa soo helay ibuprofenkaas markaan Maxamed isbarno marka wuxuu yirniyo adaa cusub maanta hadii qolada IM ka timaado gacanta taago oo adiga soo ana xanuunsan dheh xagee laga hayaa dil guraana madaxa dheh si aad igu soo qaado Tylenol marka wiilka saaxiibaan noqonay ay haaneen gacanta aan taagtay maalinka Khamiista markay yimaadeen waxaan u tagnay qoladii aligay qol ay fadhiyaan qof dhakhtar iska dhigay oo ku wareysanaa marka xagee laga hayaa madaxa xanuuna is box meeshaan ay Tylenol iga soo bixisay markaan bixi magaal may interview aad mareeda qof ku wareysanaa waxa la iigay nin magaciisa igu sheegay Francesco oo Talyaani ah Francesco bas uu iwareystay wuxuu yiri ka waran noloshiina xabsiga waase waxaan uga sheekay marka dhibaato badan ee xabsiga jirto waxaan irinay waa nala garaaca dadka xanuunsan lama daweeyo shaqo inta la wada lagu soo shaqeystaa la soo aad u dhibaato badan uga sheekay wuxuu yiri birri toolo jimcaha yiri xabsiga waxa soo booqanayo yiri midowga Yurub baarlamaankiisa oo markaas uu madaxweyne ka yahay wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka marka wuxuu yiri markay ka meesha ay soo galaan yiri xirada aad ku xirantihiin aniga waan soo wadaa waxaan keenayo qolka adinka aad ku jirtaan markaan ku keenay la yiraahdo yaa hadlaayo gacanta taago waxaan aan adiga ii sheegayso yiri ayagoo sheeg okay andri adiga qolka xabsigan ku soo noqdo Soomaalida aan soo noqdo waxaan nimeeyahay bari toole midowga Yurub soo socdo markuu noo yimaado ninka Talyaanigan waa la soo ballamay marka waxaan rabaa inaan dhibteen u sheego هذه دتك waxay dhahan wallahi fikir fiican waay kuwa wada tacbaan ahaay lirkuwana dharka ka siibeena waa u sheegina dhibtana lagu haayo gaaya sidii alla adu maray cishi amal ay too la siisay seexanaya ya wiil dadka xiran kamid ah Cabdicasiis la yiraahdo oo dabeecad ahaan dadku ma bahadlaba habeenkii inta madaxa dhulka dhigto lugaha kor u taagto oo sidii ay u qayliya oo waxa la siraaniga waxba ka qaldan ninkii ay yeeray wuxuu baraada balkaalay aanu tagay wuxuu yirniyo caaw mahmahan ku sheegay wuxuu yiri mahmah in ku sheegay ii sheegay waxay tabaamad wuxuu yiri aflagaado colaad wax kama tarto yiri nabadna way ka geysan waxaan ula jeedaa yiri hadii maanta biri markay yimaadaan yiri gaaladan midowga Yurub ee aad dhibaatada iyo ceebta nimanka ay nagu hayaan aad u sheegto yiri markay tagaan cid noo harayso waa Liibiyaan yiri marka wuxuu yirniyo inta nagu aflagaadeeda بدها نقلين يا هبينك حقا waa yara fakiray adi maalinka dhan oo fakiraay subaxi waaga markuu bariyay irideen la soo furay waxa soo galeen midowga Yurub wasiiro iyo xildhibaano qolyooyin kaamirooyin wato idaacadii caalamka Al Jazeera CNN BBC telefishinna badan oo magac ahaan markaas aan aqaan iyo soo wada galeen gabar Lubnaanees ay wataan oo turjumaan u ah waxay dhaheen hal qof oo Carabi ku hadli yaqaan oo aan wareysanaan u baahana dhalinyaradina xala waxay ogaayeen moogtaa in aniga aan ku tashanay inaan anigu hadlo waxaan Cabdirasaaq aan noo hadlaayo waan istaagay gabadhiya markay waxay tir su'aalaha idin weydiina waxay tir maxaad u xiran tihiin waxaan ir saddex siba waa u xiranahay qolo waxay u xiran tahay ayagoo dal shisheeya sir sharci darro ku soo galaya yaa la soo xiran qolana naftooda ayagoo haligaayo badda isku shubaayo alla soo qabtaan yiri qolana ayagoo magaalada iska socda alla soo qabtaan yiri markaas waxaan ka dhigaa in yaani wax dhibaato badan aysan jirin waxay tir waayeen nolosha xabsiga ka waran
وعارني هو إنتنا ما أنت هدينا اللي والدينا يا حبسك كبحر المجال إنه لودي قاب عن إنه ولا عن حتى عملنا كان سبت حاري حبس كان وحنكوها يسنا سدح عنطق قد قراع الشق وحنكوها يسنا روح برشق وحنكوها يسنا الشقة والشقة عن الصيا وصو شقة يسنا مركو هرنتي شقوي جبت لكن شقة حواي انت الله وضع له وصو شقة اللي بنسود قلها أضو التعبان اللي بيسوي علينا مركو حاري حبس كان نور في عن يانكوها يسنا وحان إري هجاميها كعنك الليبي كورنيل معمر الغدافي موادين كالصومالي قاعد يقانا إري موادين كاللباد الليبي مركو الصومالي هدانها إري هذا هو شرفنا الليبي واحد بقى ما قبنا مركو وحان إري هذا نقول محد علينا سراكيش ماشان نقول حيس هذا ينورق عليها أنا وجهي ذا مركو حاس بدل وجهي سراكيش الليبيان كويس ده هاي كان مو بلايش يا فرحت قولاد إن يوروب نوبا يا بيمبا من حبسي أمانة أي ضحاي واحد بقى ما قبنا عيدان أنت أصلا مسعني وأنا بحينا حار أنت هذا بحين سؤال ميدو ويديا حار أذنكم هذا هذا محسن نقص ضمتين وزيرك أريمها دبد الجرمال كنين مركز أي جوابي عيرو حانا هو يعني وزيرك أريمها دبد الجرمال كحانا هو منك هذا هو بيامنا أيه قولان رأي يروي حبسي كان صوب وقت وحانا ماشان أني ميدو يري إن أنا خبينه يري بجد أن كوب حنو dadka soo tahriibay dhaqaale aan ugu talagalnay oo si loogu badbaadiyo marka daqaabka aan ugu jawaabto yiri waxaan ba dareemeynaa dhaqaale aan Liibiya ku siiyeen inay wax fiican ku qabanayaan waana mahadsantahay wax kale oo jecesha u diileen ma jirto waxaan yiri wax kale ma haye waxa maanta waa maalinka ugu horeeyay inay qof Jarmal oo soo hor istaago marka taana waxa ii tahay mudnaan gooniya aan ku mahadsantahay adoo inaga tagay Soomaalidu waxay isleeyihiin ninka ayta waxba ku ballanteynay جو أمان وشيكي وحن 5 دقيقة دمينا مدير نور اللي تبني كمان شهستي يسرعكيش يصير سعدان صوّد النقطة عبد الرزاق وينك هاي كنا بحالي رمان توحد ربط البوق وصمين هاي حائر الشنا مركب دي مربتي تعبانة هاي إنه مركب حابس وجرنا أرتو حائر شنتان دي مربت ماشي كسيد دابا شنتي اللي يرجرين ما تقانن ها إردك بحر محاك الله ربطها حار انتهينا من المدة إلا ما أنت دنبي ومحرنين نيو عيروت الدولة أو حرنتين هالمر يريد إذا كان موفر كرم لكن هبين كسته الشنان دينا هبين كسته الشنان دينا كل جيل ماشي هذيك دينا إيه بالكالة هذه كانوا أنت إلى بعير هذه أنا يريد كبحث كبحث مركب أرطار ماشي عن الصعود معها الحبس قاعد أنا كشاكين وحان الصعود وحيتها أفلجات علادنا وحكمت ترت نبضنا ويكاك جيسان إنها الدلوع ذي كدرتها وحيتها ما أنت مركز قف عايضة علاد اللي بدي إني كده حيسي وحبوا ماذا نبي نبض إذين ده حيسينه واضو مسي مركب ما أنت صومالي هذانا وحان أبضاني قف كستو ضدو أفلجات دينا مركز أو أفلجات دينا عندنا نبض واتكفوا جاني قف كأد أفلجات دينا نبمو قضود يجيس ملحن مركب حن برارجين هنا وناج يقروح ذا بسلة إن هذا أفكار برتولن ذاتك آذن عين كيكو عاين هذا الصبرت ما تنتين